wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Axmed Deeq Cabdi Maxamed Falko ayaa maanta booqday jaamacadda Xanaan oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo bixiya adeegyada bilaashka ah ee waxbarasho. Ugu horreyntii wasiirka waxaa ku soo dhaweeyay jaamacadda gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Xanaan Professor Axmed Salaad Kulmiye waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay xiriirka soo adkaanaya ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo jaamacadaha ka dhaxeeya. waxaan jeclahay hadii alla yiraahdo inaan ku soo dhaweyno jaamacadda Xanaano University inaan ku soo dhaweyno wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Galmudug anagoo aad ugu faraxsan xiriirka soo adkaanaya ee wasaaradda iyo dhaqaaqa cusub wasaaradda hadda ay aad u riixayso inay bahda waxbarashada isku duudo Galmudug annana waxaan jeclahay inaan door fiican ka qaadano hadii alla yiraahdo horena waa uga qaadanay waa mahadsantihiin. Ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada Axmed Deeq Cabdi Maxamed Falko ayaa u mahad celiyay macallimiinta maamulayaasha ardayda jaamacadda Xanaano wuxuuna kaloo sheegay inay fursad u tahay jaamacadaha ku soo badanaya Galmudug ardayda dhameysanaysa dugsiyada sare oo horey waxbarasho jaamacad uga raadi jiray Muqdisho iyo meelo la mid ah balse ay hadda sida uu sheegay ay fursad u heleen. wasaaradda waxbarashada Galmudug waxaa ka go'an in la tayeeyo isku xirnaana laga muujiyo tacliinta sare. waxaan ognahay duruufta ugu badan ee deegaankeena ka jirta inay tahay waxbarashada tacliinta sare taasoo keeni kartay in ardadeena markay dugsiga sare ku dhameeyaan deegaanada Galmudug inay deegaano kale u haajiraan sida ama Xamar oo kale ama deegaano kale oo kale taasoo keeni kartay ardadeena ama ubadkeena ay maskaxdooda ka gudubto meeshaan taasoo keeni karto in mustaqbalkii ama dhalinyaradii deegaanka ay ku yaraato. taas anagoo ka duulayno waxaan rabnaa inaan dhiirigelino jaamacadaha laga hirgeliyo deegaanka oon qirayno runtii haween inay la yimaadeen standardkii loo baahnaa waxbarashada tacliinta sare oo waliba jaamacadda Xanaan oo u sii dheer tahay in yani waxyaalaha aan taaka la kulana waxa kamid ah in ardaygii oo isbitaalkii iyo theory-gii oo jaamacadda isku meel ku qaadanayo runtii oo asagoo practical ka qaadanaya ardaygii muxuu ahaa haddana inuu casharkiisa u qaadanayo runtii waxa weeyaan waa arrin runtii buurin mudan. Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb.